Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyay gogosha wada-tashiga ee uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, taasoo la xiriirta arrimaha masiiriga ah ee dalka sida doorashada, amniga iyo dastuurka. Waxaan soo dhaweynayaa muddaynta gogosha uu fidiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ku saabsan in wada-tashi qaran laga yeesho arrimaha masiiriga ee Soomaaliya, kuwaas oo ay ugu horeeyaan doorashada, amniga iyo dastuurka, ayuu ku yiri qoraalkiisa. Madaxweynaha hore ayaa si gaar ah u xusay muhiimadda ay leedahay in madaxda dowlad goboleedyada dalka, gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland, ay si buuxda uga qayb qaataan wada-tashiga si loo helo hannaan midaysan oo horseeda xasillooni siyaasadeed iyo dowladnimo loo dhan yahay. Si gogosha ay miro dhal u noqoto, waxaan adkeynaynaa baaqyada ku aadan in si dhammaystiran ay uga soo wada qayb galaan madaxda dowlad goboleedyada, gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland oo taabasho uga maqnaa madashii wada-tashiga qaranka, ayuu hadalkiisa ku daray. Ugu dambeyntii, madaxweynihii hore Farmaajo ayaa ku baaqay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu dib uga laabto tallaabooyinka dhinaca keli ah oo uu khilaaf ka taagan yahay, si loo dhiso kalsoonida siyaasadeed loona xaqiijiyo wada shaqayn dhab ah oo u dhaxaysa heerarka kala duwan ee dowlad dhiska.